السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. inteena badan waxaynu ka maqalnay sheekada doontii amba markabkii Titanic taasoo la qarqoontay dhagax baraf ah oo ay duqeysay awgeed sanadii 1912 waxaana ku dhintay dad badan dhacdadaas. waxa ayna doontaas caan u sii noqotay markii shirkadda filimada ee Hollywood ay ka soo saartay filim ka faaloonaya sida ay u dhacday dhacdadaas. waxaana dad badan maskaxdooda gashay in ay doontaasi ahayd doontii ugu weyneyd ee soo martay dunida, laakiin xaqdu sida ay tahay waxa la helayaa doomo ka weyn doontaas Titanic. barnaamijkeenan waxaan idinku soo bandhigi doonaa doomaha dalxiiska ugu weyn dunida ee sii daawo barnaamijkan oo dhammaystiran like-na dhan muuqaalka si uu gaadho saaxiibo fara badan. soo dhawaada daawadayaal. RMS Queen Mary 2 doontan dhererkeedu wuxuu gaarayaa 345 mitir waxayna awoodaa halkii mar inay qaado 2620 qof. waxaana lagu bixiyay doontan dhisitaankeeda lacag dhan 900 oo milyan oo dollar. waxaana lagu dhisay qalabka ugu casrisan. waxay leedahay doontani qol weyn oo lagu cunteeyo, qol masraxa oo lagu soo bandhigo bandhigyada janska wixii la halmaala, meelo lagu dabaasho, maqaayado lagu talagalay inay ka cunteeyaan dadka dabaqada hoose ah, iyo wax kasta oo laga heli lahaa hotel weyn oo 5 star ah. 2 Aviation of Seas doontan waa doontii saddexaad doomihii lagu magacaabi jiray Quantum Glass. dhererkeedu wuxuu gaarayaa 348 mitir, culeyskeedu wuxuu leeyahay 16.866 tan, waxayna qaadi kartaa halkii mar in ka badan 4900 oo qof. waxayna leedahay doontani meelaha lagu dabaasho, howlo lagu qabsado xafladaha, iyo meelo ay carruurtu ku ciyaaraan. doontani waxay jiri kartaa xawaare ah 42 kilomitir saacadiiba, waxayna gaaraysaa lacagta lagu kharash gareeyay doontani ku dhawaad 1 bilyan iyo 200 oo milyan oo dollarka Mareykanka ah. markuu xagaagu yimaado waqooyiga adduunka, doontani waxay ka dhex shaqaysaa biyaha China. markuu xagaagu yimaadana koonfurta waxay ka shaqaysaa biyaha Sydney ee waddanka Australia. 3 Autumn of Seas culeyska doontani wuxuu gaarayaa 168.666 tan, dhererkeedu wuxuu gaarayaa 348 mitir. doontani waxay shabahdaa oo ay u eg tahay xagga dhererka doontii aynu hadda ka soo sheekaynaynay. waxay qaadi kartaa 5,000 oo qof halkii mar. waxayna leedahay doontani 517 qol oo leh jardiin lagu nasto oo aad ka arki karto biyaha badda, iyo 137 qol oo si toos ah looga arki karo badda, iyo sidoo kale meelo lagu dabaasho oo ay ku wareegsan yihiin saqaf iyo gidaaro ka samaysan muraayado amba dhalo oo la isugu imaado markay jirto cadceed kululi, iyo barkado kale oo loogu talagalay inay ku dabaashaan carruurtu. doontani waxay leedahay bir dheer oo qol ku dhex samaysan yahay oo ku taalla meesha ugu sarreysa ee doonta, dhererkeeduna yahay 300 oo tallaabo. waxaa lagu qaadaa qaar ka mid a dadka safraya si ay dhinaca sare muuqaalo fiican uga arkaan doonta iyo baddaba. waxaa lagu kharash gareeyay doontan lacag gaaraysa 940 milyan oo dollarka Mareykanka ah. 4 MCS Meraviglia doonta lagu sameeyay waddanka Switzerland waxay awood u leedahay inay qaado halkii mar 4500 oo qof. wuxuuna gaarayaa culeyskeedu 175.598, dhererkeeduna wuxuu leeyahay 315 mitir. saqafkeeda sare wuxuu ka samaysan yahay leedhar iyo muraayado iftiimaya, taasoo soo jeedinaysa indhaha dalxiisayaasha iyo dadka ku safrayaba. waxay leedahay doontani hool weyn oo lagu soo bandhigo bandhigyada qosolka iyo madadaalada iyo kuwa fanka ah. sidoo kalena waxay leedahay meelo lagu ciyaaro ciyaaraha khamaarka, barkado lagu dabaasho, 2 silimo, 4 maqaayadood, iyo weliba meelo lagu nasto oo lagu cadeedsado. waxay jiri kartaa doontani xawaare dhan 43 kilomitir saacadiiba. waxaa lagu kharash gareeyay lacag gaaraysa 1 bilyan iyo 100 milyan oo dollarka Mareykanka ah. 5 Oasis of Sea
doontan waxaa samaysay shirkadda ugu weyn ee samaysa doomaha, waana shirkadda lagu magacaabo Royal Caribbean International. waxayna awoodaa doontani inay qaado halkii mar 5400 oo qof. culayskeedu wuxuu gaarayaa 225 kun, dhererkeedu wuxuu gaarayaa 361 mitir. waxay ka kooban tahay doontani 16 dabaq. waxay leedahay 24 salaan amba jaranjaro oo u dhexeeya dabaqyada. waxay leedahay doontani barkad lagu dabaasho oo lagu qabto bandhigyada ciyaaraha biyaha. waxay leedahay meelo loogu talagalay in lagu ciyaaro kubadda kolayga oo loogu talagalay dadka jecel sportiska. waxay jari kartaa xawaaradan 43 kilomitir saacadiiba. waxay gaadhaysaa lacagta lagu kharash gareeyay 1 bilyan iyo 400 oo milyan oo dollarka Mareykanka. 6 Al-Yarofsis waxaa la dhisay doontan sanadii 2010 wuxuuna gaarayaa dhererkeedu 360 mitir. waxayna kor uga qaadan tahay badka dhererka dhulka 65 mitir. culayskeedu wuxuu gaarayaa 225 kun oo tan. waxay awoodaa inay qaado halkii mar 5600 oo qof. waxay leedahay 2700 oo qol oo loogu talagalay dadka safraya. waxay leedahay beer weyn oo lagu ciyaaro. sidoo kale waxay leedahay meel lagu ciyaaro ciyaaraha barafka. waxaana lagu kharash gareeyay lacag gaaraysa 1 bilyan iyo 200 oo milyan oo dollarka Mareykanka. waxayna jari kartaa xawaaradan 46 kilomitir saacadiiba. haddaba daawadahayga qaaliga ah su'aal: haddii doomaha aynu soo sheegnay lagu odhan lahaa ku safar, doontee ayaad jeclaan lahayd inaad ku safarto? fadlan kommentiga hoose igula wadaag fikirkaaga iyo doontaad ku safri lahayd. intaas ayaanan idin soo gudbinaynay maanta daawadayaal. haddii aad ka heshay muuqaalkeenan, like noo saar. haddaad ku cusub tahay kanaalka waa kuma, subscribe dheh. maca salaama, fi amaanillaah. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.